بسم الله الرحمن الرحيم طلسك عيدك بوليسك الصوماليات خيبتا نبدجلده ودooyinka ترافيكو شان إلى تنكي ماي لبكون صدح إلى لباتن ورصحافات كالتنك شقة معلوماتك بتشاشت A B عاصمة دا ينواحي جيدا وربحين جود سنة كي sida xogaha warbixinta ay nala wadaagtay qaybta nabadgelyada wadooyinka ee traafiko ciidanka booliska Soomaaliyeed sanadkii isku celcelis shilalka dhaca waa 1719 shil oo ay qayb ka yihiin ama daraf ka yihiin dhammaan gaadiidka ku dhaqan caasimadda intooda badan oo isugu jira gaadiidka mootooyinka feekonta bajaajta iyo wax la wixii gaadiid ah sidaa daraadeed isku celcelis bishii magaalada Muqdisho caasimaddeena waaxigeeda waxaa ka dhaca 143 shil oo isugu jira dhammaan ay ku lug leeyihiin dhammaan gaadiidku taasoo mooja bajaajtu ay qayb ka tahay si gaar ah isku celceliska shilalka aan kor ku soo xusnay 95 kamida waxaa gaar u ah ama qayb ka ah gaadiidka nooca loo yaqaan bajaajta sidaas daraadeed ayaa bajaajta shilalka ay gasho waxay sababaan dhibaatooyin isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyeed sidaas daraadeed ayaa kaltankani wuxuu xal u ahaa sababta keentana ay ahayd in lagu yareeyo dhacdooyinka shilalka ah iyo saxmadda ka jirta magaalada caasimadda iyo nawaaxigeeda amarkan kala xadaynta kaltanka dhacdooyinka ah oo ay soo saareen golaha wasiirada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya jideeyeen isla markaana ay fulintiisa qayb ka ahaayeen maamulka gobolka Banaadir iyo ciidanka booliska Soomaaliyeed hay'adaha kale ammaanka ayaa loogu talagalay in kaltankani uu ka hirgalo magaalada caasimadda iyo nawaaxigeeda sidaas daraadeed degmooyinka ama deegaamada fooraha ah ee magaalada waxay la wadaagaan faritaanada magaalada caasimadda ah maadaama ay gobolka Banaadir ka tirsan yihiin haddaba bajaajleyda aan u hoggaansamin amarkan ee ku sugan degmooyinka ama deegaanada fooraha ah ciidamada ammaanka waxay waajib cad u haystaan in gacanta lagu soo dhigo lana soo qabto sidaas daraadeed kuwa magaalada caasimadda gudaheeda ku sugan si fiican ayay maantay u fuliyeen oo maalintii ay ka bilaabanaysaa digniin waxaa jirta in ay jiraan xajmi aad u fara badan oo mootooyin ah ama mooto bajaaj ah oo dadkii iska lahaa sabab kasta ha ku timaadee aysan soo marin habraacii A iyo P loogu sameeyay loo kala xadeynay kaltanka taasoo noqon karta in canshuurta la baxsanayaan ama falal kale oo gurrucan ay ku lug leeyihiin waxaana ciidanka booliska Soomaaliyeed hay'adaha kale ammaanku ay hayaan iyo wasaaradaha ku shaqada leh gobolka Banaadir ay hayaan xajmiga ama tirada mootooyinka aan la diiwaan gelin waqtigii la siiyo labada bilood ahaana uu ku dhacay sabab kasta oo loola maqnaade waxaan isha ku haynaa ciidamada ammaankuna ay u amran yihiin ay waajib cad u haystaan inay gacanta ku soo dhigaan haddii ay jiraan mootooyin nooca ah oo aan habraaci loogu talagalay soo marin sidaas si la eg waxaa jira mootooyin kale maadaama faritaanadii ama xeerka golaha wasiirada ay jideeyeen ku caddaa in mootooyinka la mamnuucay in laga soo dejiyo magaalada caasimadda ee Muqdisho gaar ahaan mooto bajaajta sabab xajmigaas loo ilaaliyo iyo saxmadda sidaas daraadeed waxaa dhici karta jirtana oo xaqiiqo oo jirta in mootooyin lagu soo geliyo magaalada caasimadda si tahriibin ah oo laga soo dejiyo dekadaha iyo gobolada dalka ka yimaada si tahriibinina lagu soo geliyo maadaama aan dekada lagu soo galin karin kuwaas ruuxooda ishaan ku haynaa waxaa jiray qodob kale oo farayay oo ahaa in aysan heli doonin diiwaangelinta ama laysanka ama shatiyeynta aysan heli doonin haddaba wixii moota oo noocaas ciidamada ammaanku ishay ku hayaan waajib cad ayayna u haystaan inay kula xisaabtamaan dadka falalka noocaas sameeya cidii ku kacda fal noocaas ee aan soo diiwaan gelin ama aan la imaanin waxaan u qaadanaynaa ama aan fulinin awaamiirta kale iyo faritaanada kaltankan bajaajta ee la siiyay A iyo B waxaan u qaadanaynaa inay yihiin qoliyo amniga lid ku ah oo falal gurracan ka shaqeynaya waxaan dadka dhagahooda ku dhibcinaynaa ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku dhaqan magaalada caasimadda ee nawaaxigeeda inta fulisay waa fulisay inta aan fulininna ciidamada ammaanku ishay ku hayaan waana la socdaan waana kula xisaabtami doonaa cidii lagu helana sharciga ayaa la horgeyn doonaa si ay cadaaladda u marto wixii sharciga ay ka heshan ay leedahay ugu dambeyn waxaan u mahad celinaynaa
ciidamada ammaanka maamulka gobolka banaadir wasaaradaha iyo dadka bajaajta lahaa ee u hoggaansamay faritaanada ay dowladdu soo saartay ah kala xadaynta iyo kaltanka shaqo maalmeedka bajaajleyda ay kala ahaa A iyo B cid walba oo qayb ka qaadatay in faritaankaas dowladda ama markaas dowladda sidoo ahaa u fulo waa ugu mahadcelinayna mahadsan yihiin gaar ahaan maamulka gobolka banaadir dadkii bajaajta iska lahaa oo milkiilayaasha bajaajta ah dowladda wasaaradaha ku shaqada leh iyo hay'adaha ammaanka oo fulintaas qayb u ah waxaan rajaynaynaa in sidaas iyo si kasii qurux badan ay noogu socoto tirakoobka aan soo sheegnay ee dhacdooyinka shilalka ah ee magaalada caasimadda nawaaxigeeda ka dhaca maadaama la kala xadeeyay qaybta nabadgelyada wadooyinka traafiko oo u xil saaran nabadgelyada wadooyinka geyiga Soomaaliyeed waxaan rajaynaynaa dhacdooyinkani in ay kala xadeyntan ama saxmadan yaraatay ay hoos u dhigi doonto dhacdooyinkii shilalka ahaa 70% qiimaan inta la eg ayaanu ka filaynaa hadii Ilaahay yiraahdo wax walba iyo marxalad kasta oo ku soo kororta iyo dhacdooyinka sida wax u dhacaana sidaas si leeg ayaan ummadda Soomaaliyeed uga wadaagi doonaa shirkana jaraa'id maanta intaas uu ku saabsan yahay waa mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh isbitaalka Samadeeq u doono adeeg hufan iyo dhaqaatiir takhasule daweynta xanuunkaaga waana isbitaalkii ugu horeeyay ee laga hirgeliyay deegaanka Gubadle badqabka bulshadeena waa astaanta Samadeeq Specialist Hospital